الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مركلة إيو channel كي دولميديت ميديا جروب إن شاء الله سيدان هوري أنا إذن كشاكني أما أنا إذن كسر بندقني فريتان كا channel كا و channel مرولي بعطوة دادك أنا عطكو ذا جارسين كريم ما شاء الله وطلقلي isla markaana ka soo horjeedo dulmiga barnaamijkan ama channelkan Dulmidid Media Group waxyaabaha aan u sameynay ama aan u asaasnay waxa kamid ah in aan mar waliba aan garab iyo hiila aan u noqono dadka la dulmiyay isla markaana dadka wax dulminaya laftirkooda aan hiila u noqono maxaa yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri unsur aqaaka in kana zaliman aw madluman walaalkaaga gacantiisa qabo ama u gargaar haddii uu yahay mid wax dulmiyay ama la dulmiyay marka barnaamijkeena insha Allah caawa waa mawduucii ugu horeeyay ama barnaamijkii ugu horeeyay oo aan uga hadli doono dulmiga iyo saameynta oo ku yeeshtay bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda waxaan wax badan ognahay 20 sano ugu dambeeyay gaar ahaan xilligii dawlad la'aanta wadanka Soomaaliya inay dhacaan dulmiye badan iyo xilligii ka sii horeeyay marka bulsho kasto nool meel walba ay ku nooshahay iyo waqti walba ay nooshahay lagama waayo qof dulman iyo qof wax dulmiyay barnaamijkeena caawa waxa diyaar noogu ah walaalkeena Umar Abuukar Umar oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaana ahaa hogaamiye community leader Nairobi Kenya haatan ma ku sugan magaalada Edmonton gobolka Alberta dalka Canada isla markaana ka ah subject organization ama organization la magac baxay subject ayuu wuxuu ka yahay isku dawride insha Allah barnaamijkeena caawo sharaf ay noo tahay Sheekh Umar inaan insha Allah nagala soo qayb gashid waa isla markaana wuxuu xubin ka yahay Dulmidid Media Group waa groupka ama kooxda jeclaystay ama fikirkooda ka keenay in aan asaasno channelkan si uu dulmiga aan mar waliba aan ugu noqono hiilo qofka la dulmiyay iyo qof wax dulmiyayba insha Allah barnaamijkeena waa gudagaleena walaalkeena Umarna uu nala joogaa wuxuuna ka hadli doonaa saameynta uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda waxa la yiraahdo dulmiga ku soo dhawow waxa live ugu jirtaa Dulmidid Media Group إن شاء الله. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سنته ولكن جماعة الإساخ عبد الله موسى حقيقي ومد مهم برنامج كان أسجع إن بدن بان كسر شقينا Dulmidid Media تاسو أن ربنا بنشر الصوماليات ما لا منشأ يجوان سيدي يكون دولة هين يكون خلاين كوا ما ارتمر بالدلمجة وكهر تجو وناجنه أي سميان محايل حقيقي وحنا رجنا مدية بدن مركز أو لا أساسي تاسو مرول بنا أيسن كهلين دنك دلمجة مركا هذا وما سنتين ولا له فكرة أن نسكو كأنه سو سيدنا أن مردلين وسمين ولا برنامج كان Dulmidid Media مركوحن رجينا يا صومالي مرول بأيشوان ولا الله الصوماليات إن يكون حرنا هذا البرنامج كسجع سيدي ربك سبحانه وتعالى وما أردت إن أجر حسنات أو نوصيه أو نعجه تجنو ما أردت الظلم جاي دواتين مركز وطن كتاجن ورنتا ولكن إن هذا له ظلم جا وتوح والبو وح وطن هذو دمايو أم وطن هذو بربرايو ما بربرو إلا إيو وحكوس جري صح محايا إن حقيقة دي وطن بربركي وإمارة وحواي ضد حلقاس أيضا أيام معناها people are not missing each other that كي مسدجنسنا هدي مسدجنسنا لهاي معناها خوفك أو ولالك هذا واحد بسدي أو هذا الكيس أتخادد ورمحات سيئة ماشي ولا هذا الإمارة ظلم مدعى صح مركز ظلم يبدأ إقامة دائنة أي تاني واحد كسبتي إن وطنك وبربرو دبعت بدن إن جيستو خبير إن خبير بدن إن خبير لسكور راعو oo isku dulmiyay inta Soomaaliyeed hadda maanta waxay marwasay dulmigu wuxuu la geysiyay Soomaali inay is kharxiso nin Soomaali ah
oo ma artay in uu isku qarxiyo walaalihiisa oo intaas kun Soomaaliyeed oo ku qanacsan yahay inuu meesha ku dhinto waxaan oo dhan waxa way qadar Allah way oo Ilaahayna subhanahu wa ta'ala ma artay in raali ka ahayna way maxay waxaan oo dhan dulmiga ayaa horseed u ah waxay gaartay maanta dulmi wuxuu na geersiyay Soomaali nin kale walaalka Soomaali atoore u qaadato sida ma artay xoolihiisa kale u qashin taasoo waxaan oo dhan aas ay leedahay marka dulmiga in badan oo na geersiyay waxaan rabnaa Ilaahay uu karaal noqdo in dadka Soomaaliyeed ay midoobaan ay ma artay ka hor imaadaan waxyaabaha dulmiga dulmiga walaalkii waxaad ogsan tahay rag badan baa hadda Soomaaliya ku dulmaysan macnaa ku dulmaysan qabiilo badan haday yihiin walaalihiina Gawoy haday yihiin reer Xamarka anaga oon kula hadlayo waxaan ka soo jeedaa beelaha Jareerweyn qoomiyada Jareerweyn waan ku dulmaysanahay rag kaleento oo habiyaha ku jiro idaaroodka walaalihiina ayana dulmaysan marka waxaan rabnaa dad walaalo maadaama aan nahay oo Soomaaliyeed aan nahay xaqiiqdii inaan ka hor imaan waxyaabaha oo anaga hoos noo dhigay oo mar walba aan ka talano waxyaabaha diinta ma artay horseed oo sidii macnaha aan ku gaar lahayn balwaaqo aan ku gaar lahayn kuwa cadow mid uu yahay kii wadanka soo hunguriyeystay ama Soomaali inuu dudumiyo inuu cadaween inuu noqdo kan naga shisheeyaha oo san noqonin cadaweyna kan wadanka wax soo gelinayo for example dulmiga dhamaantu wuxuu keenay arag walaalka hada dulmigaas adagana uu ku saameynaa isaaqo macnaha waxaad u jeedaa hadda gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoosba iyo Jubbooyinkaba rag oo beerahooda falanayo oo ayaga boojeysano ma artay wax soo saar iyo nyaanyada iyo ma artay basalka iyo barbarooniga iyo khudaartii soo saaray ala soo barkay guriyooda laga soo gubay magaalada ay soo galeen tani waxay ku noqotay ay dul saariyihiin wadankii gudihiisa cariiriga ay ku hayaan iyo cariiriga ay ku jiraan way yaabisan maxaa yeelay marka hadii ay dulmi jiraan leeyahay dadkan waxa way canshuuraad ay soo saar lahayn oo dawladdu waxay ka qaadan lahayd canshuuraad oo horumar la gaaran lahay ayagana self sufficient ay noqon lahayn ku ma artay naftooda ku filan oo ma artay waxa image wanaagsan macna muuqaal wanaagsan Soomaaliya hadii la arko lama dhihileena hadda for example ninkan United Nations oo u taagan wuxuu dhahay nus milyan hal milyan waxay ay daadsiin oo ma artay Muqdisho banaankeeda kuxooti ku yihiin IDPs ay ku yihiin waxaan waxa way image xun way macnaha waxa way muuqaal xun oo Soomaaliya oo qof oo ku dhashay oo qaxooti uu ku yahay bal fiiri marka waxaan rabnaa waxyaabahaas oo dhan sidin ugu hor imaan leeyahay marka dulmiga waxa way waa midka aniga aad noo liido marka waxaan rabnaa dulmiga inaan liidno oo anaga na liidan tani ayaa darteeda aan leeyahay ma artay aan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan hawada inaan bilaabno ما شاء الله وارون حالي جري ظلمك سيدي سبا وحكمت هي ذنوب تقوى وين حال الله سبحانه وتعالى وحليه حديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا الله سبحانه وتعالى الدنيا ذان أسيغا كاستي بن آدم كي وحي كنول أسيغا قعنتي سكو سميي يعني ساس أي تهي نفس ديسا وكحرمي إنه ظلميه شيء أذيك عن لا ذهي وعادن سارت السمين كريم كوان الظلمك إلى الناس الله سبحانه وتعالى أسيغانا أورتي عافماتك أرزاق ذا كل وحولي بو أسيغانا أمستري ساس أي تهي وحو نفس ديسا كحرمي إنه نوحد قدبو الله أكبر حولي أنيقم إذن ظلمنا إذن كاس ظلمنا والله خير الله كسي ولكن آذن أن كاغم هتعلني عايد قرآن إن السوق هذا تد حاجة كهدلس دولمجا إلهي نفتي سنس أجا حرن تمي والدرام كرتا أنا جب بن آذن أحقاد ولا عفسن ورتا الإنسان آد وجود جلن برنامج كواحد آد قوم هتعلنا شيخنا وآدم وتغيرسنا هاي ما شاء الله شيخ محمد كنياوي وهذا الحل الدول القصور دبي مقالة المقدسة وآدنا ما أرتي حقيقي قلبي أهان ما أرتي شعورتي هذا وكعد الشيخ برنامج ماشي وكنت أنا وياي عفي ولا الكاغا عفي ولا الكاغا وواحد وين آية القرآن وما أرتي مركز شيخنا تا وشيغي وعفي ولا الكاغا بل أنا حتى معنا فكرة كلام وتيبو أيضا تاس جرتو ولا الكا قرمال عفين كرا وحال عفين كرا إله غفور رحيم إن ربي وحن ليه
horta ilaahay allah noo naxariisto sheekhan allah u naxariisto inta dhammaan Soomaaliyeed allah u naxariisto sheekh wuxuu markaas uu dhahay war yaa jannada jecel gacanta la taagto waxaan barnaamijka meesha Soomaali dadkii wixii banaanka gudaha joogan gacanta ayaa la wada taagtay jannada sida loo jecel yahay ma sha Allah ilaahay waxaan ka tuugaa Soomaali sida jannada ay u jecel yihiin dulmiga inay u nacaan ilaahay waxaan ka tuugaa sida ma artay jannada ay u jecel yihiin inay ay u karahaystaan ay ka fogaadaan inay walaalkooda ay dulmiyaan waayahay qofka goormo jannada galaya sida nuqsanahay jannada macnaha waxa nothing is free in this world adduunkan wax oo free ah ma lahan ilaahay naftan waa na abuurtay macnaha uma taagnay nooma abuurin in dad aan dulmino inaan dukuna kalima ah salaada kalima ma aha salaada waxa horta salaada goorma adiga salaadada ay noqonaysaa mid saafi ah markii oo xumaanta aad ka tagad sax laakiin waan salaada waan dukuna guri walaalan ku jira ma artay aan dulmiyay cunug banaankaas jooga ma artay ayaa ma artay aan ma artay aan xoolihiisa cunugaya cunug yatiin ee ma artay aan xoolihiisa ku fidhiya عفز نوراواي ولكن وعفيا يا وح عفينا تكون وحكسو وريو خفكو لا عفينا ظاهر مياه اسن صح ظاهر مياه هرتا ولكن او دلمي عفز بدونتي هدي لكن انت ما ارتي او مركاس او ايغا لي كوي ددك دلمي هديهين iyo ma artay la dulmiyaha iyo kii la dulmiyay kii aan la dulbinin oo isku jiraan hay alis cafiyo gacanta la wada taagto wa is cafin la dhaho laakiin wilibo adiga daahir ma tihid waxaadan daahir ku inaan guridada ku jirtaa waxaadan daahir ku inaan beerdada ma dadka soo barakicisi waxaadan daahir ku inaan cunug ayaa ma artay guryahoodii iyo tuulooyinkooda soo gubtay magaaladaas ku yahay warkii horta difka aad u geystay ma dhahday walaalo cafi ilaan waxaan rabnaa ma artay anaga Soomaali midaysna rabnaa waxaan rabnaa ma artay horumar baa rabnaa waxaan rabnaa marka waxyaabaas dhan way ka horeysaa waxaan aad ugu daryahay Soomaaliyeed adaka waxaan u fahmay qofka gacanta taagtay oo wax cafinayo waa qofkii khaladka sameeyay waa dareen kartaa qofkii oo khaladka sameeyay gacanta taagtay janna rawaaye walaalka asaa ku leeyahay wala cafiyay waana cafiyay warkii adigu horta dulmiga aad u geysasay oo dulmisay ma u tagtay ilaa asaga banaanka uu joogo kii admaad waa dareem kartaa maanta Soomaaliya meesha ay taagan tahay xaqiiqdii in badan waa soo qaatay suuqa bakaaraha wax ka dhacay oo kale sanad walba 2 sano ka bacdi waa gubna macnaha waxyaabahan oo dhan waxa waaye dulmi ma dhigi kari laakiin hatta sadaqadii haday qabiil gashay isaaqo waa dareem kartaa صدقني أنا دي معنا ذكرني هذه خبير قشي صدقني هذه خبير لقلي وروحان أبانا دت ولا لنا ومسلمين هذا ما أنت بخل كيو بخل واحد لنا الصومالي إنه يهندت مسلمين ودين الإسلام كل رحمن بلادنا سي هاتو شيخ واحد قدر سنها برنامج أو إنه كان ورتمر كدول مجا كدا ولا الكاغ هدول منن عفز كدون ولا الكاغ هتا عفو ولا الكاغ واحد ليه لأن أنا إنه walaalkaaga cafiska doon sidii walaalkiisa uu wacdo walaalow khaladkaan ka galay ee hadana macna percentage aan ciyaarno macna hada ku faanta inta ii cafi inta ii xalaalay adale macna qof uu ku yimaado cafiska soo dalbado wadaan wax horaan karta marka adan inta wax ticireen marka barnaamijkan oo ah maartay dulmidid media waxaan aad ugu baraarjin lahaa dadka Soomaaliyeed walaalaha in maartay ilaahay ay ka cabsadaan maxay yeelay naftaan anaga maanta nagu jirto waan dhimanayna imisa oo siyaasiyiin ahayeen politician ahayeen oo maanta oo ma artay hawada laga qariyay waa dareemi kartaa marka waxyaabahan oo dhan waxa waa adduunka isbedel waxaan rabnaa jilka soo socdo inay naga bartaan ma artay dhaqan wanaagsan anakoo dhaqanka aan ku gudi jirna le inay soo koraan oo u baahan kuwiya hore ma artay la dhalay for example marka xilliga dagaalka u socday waxaan filayaa in aqli la'aan أخليه ودما of course 9 years هذا جيل أما 10 years أبافن لكنه حل راس عنيكي لا دلي المودلويا دلوا كسوكري دلوا كسوينا عدالة مارك مركو حارنا كل كل هذا دلنا دونان إن مارتي أي environment وناكسن مارتي أي كسوكو بعام ضد إسجعل سومالي مديسن قبل إن على سكت دقي وما أرتي كنا هبل كنا هبلاء إنجلدين marka sidaas darteed aad ugu taageersanay barnaamijkan asaga ah dulmidid dulmi markii laga hadlayo bulsho kasto meel degan waa dulman tahay ama wax bay dulantay
khaasatan Soomaaliya waa la isdulmay waa xoolo badanaa la kala qaatay guryo badanaa la kala xoogay waa la isdilay waxyaabo badanaa dhacay sidoo kale waxaa la mid ah dowladda dhexdeeda dulmiga ka jiro absolutely marka dulmiga ma aha mid gaar ah ama position gaar ah mid ku kooban Soomaaliya oo dhan ama adduunka meel walba la joogo yani waa la wada dulmisan yahay dadna wax bay dulmeen waxaan ugu baaqi lahaa Soomaalida sida uu sheegay walaalkay Umar inay iscafiyaan ama inay cafis isku doontaan qofka wax dulmiyay uu og yahay inuu qof dulmiyay haddii aad weli nooshahay oo nafta kugu jirto oo caafimaad qabtid ilaahay jaanis uu ku siiyey qofkii wax ka soo qaadatay ama qofkii wax u geysatay oo dhib ah waa og tahay waxaa fiican intaadan waqtigaada la gaarin oo lagu aasin inaad qofkii u tagtid aaraali gelaysid maasha allah khayr allah ku sii waxaan soo xasuustay anagoo markaas Kenya joogo 2010 inay iidan u maleynaa waxaa meesha ku qabsaday maartay shir weyn dadka wada dego reer Hiiraan shirkaas aniga lagu martaqaaday anagoo markaas aan matalayo walaalaha reer Makane xaqiiqdii shirka asaga ah maadaama reer Hiiraan toban iyo kow qabiil isku imaadeen meesha markaas ay dhaheen Makane asaga ee gooshan furay marka waxaan waayay nin oo maartay Makane ah laakiin maadaama isku reerkii aan anaga kursigii aan fadhiistay waxaan arkaa marka rag hal qabiil ka maqan meesha halkaas qabiil waxay u diideen hal tuulo oo qabiilada kale walaalahin habii kamid degan inaan sheego maartay mudid maadaama uu yahay barnaamijkan qabiilo badan aan cayuman ay tahay maartay sidaan u maleynayo ay dhaheen macnaha qabiilkaas haduu ku jiro oo hal tuulo ka degan maartay beledweyne macnaha Hiiraan macnaha ma ka soo qayb galay hal tuulo ka degan laakiin 12 maxay isku raaceen in ay tahay dadkan in laga soo qayb geliyo tani macnaheedu waxaan ka wadaa shabeelada hoose walaalayna biinaad oo degan ma artay boqolaal tuulo magaciya loo qoonsaday ma artay iska dhaafurta in ayaga la sheego wax kharsamaayo iyo waxaan kharsameynay waxay ay kaliya for example dad degan Cadiinooda degan Muraala degan Jannaala degan ma artay Captain Las Wagaade degan ma artay Buulisheekh Haduumun Gaawiro dhankaan degan oo ayaga leh ala leeyahay ma artay idanka biimaal buutiin ana dulmi wax ka weyn arag war dadka ma kharsamayaan dada hadda laga yaabo barnaamijka laba qof iyo hal qof ma ahan meesha oo mid dhan waayo oo biimaal la dhaayo dadkii oo ma artay Talyaaniga la soo dagaaltamay dadkii ma artay Talyaaniga gumeystay oo ma artay colonize garay oo la gumeystay oo lagu imaaday ilaa qofka la colonize garaynayo oo qof meel loogu imaaday markaas ma artay deegaan u yahay haddii aan ka hadalno macnaha dulmidiidka barnaamijka dulmiga waxa kamid ah dadkan in oo Talyaaniga oo dulmiyay oo kiliga isku aasay kiliyaalka ma artay macnaha markii kiliga uu soo jabsado ma artay biyaha lagu celin jiray biixireen lagu dhigi jiray kili asayla jiro oo muuqata taariikhdii wixii dhan way muuqata hadda la dhaha ma artay habadan laga saaray macnaha idinka wax jira matiin la dhahay waxaan huwa of course dad badan walaalihiga ah oo Soomaaliyeed oo markaas inay hadalkan oo macnaha waxay leeyihiin dadku waxay leeyihiin the truth hurts macnaha runta dad bay dhigtaa run hadii la sheego qofka ku faraxsan dad kale inta way dhibaysaa runta macnaha for example dadkan waxay leeyihiin Tanzania laga keenay waa jarir kale Tanzania laga keenay beer inay loo falaana u keenay war beerha lagu fala ma xume ana beerba meesha kuma leedin deegaanba meesha kuma leedin shan tuul ama oo soo xisaabi kartid anaga degan dhig kartid ma leedin marka dadku wax la cun laakiin waxa loo baahan yahay adigoo dulmiga ka fogaanayo walaalkaadan aadan dhaawaceenin wixii micna Soomaalnimo loo wado ee la rabaa ma artay in la gaaro marka insha Allah waxaan ugu baaqayaa dhamaan walaalaha Soomaaliyeed in arrimahaas ay ka fiijignaan qawaadaan oo midoobaan oo Ilaahay ay ka cabsadaan adduunkan waa laga tagayaa insha Allah waxaan leeyahay hadii in case on khalad galan iga raal aada marka aad u maasanta walaalkii Isaaq barnaamijka asaga amartay maanta inaan suurta gelino oo maartay أنا آدم كوما بعلنا ولكن عمر أبو بكر عمر ونهوري آدم كشاي إنه يقف أقوياء الصوماليات إسلام كان هذا كأه أن community leader in Edmonton, Alberta, Canada
إن شاء الله برنامج كينا وحنا نقوم دونا مد جوكتا معها مد كو إك مانتا إن سيدة كم وقتا تايتل كا أما channel كما عيسى وظلمي ديد ميديا جروب مركا الدنيا دي انت لجوغ أما لنولي هاي of course ظلمي مدمان دونا marka intii ba aniga aan naftan ugu jirto ama aan noolnahay hadduu ilaahay yiraahdo waxaan u taaganahay ama aan kasoo horjeednaa dulmiga maadaama uu allah subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay inuu yahay adulmu dulumaatun yowma alqiyaama yani maalinta qiyaamo dulmiga wuxuu noqonaa yani dulumaad halkii dulmi ah wuxuu noqonaa mugdiyaal badan kelimada dulmi bilcarabi yani waxa waaye mugdi ama madow so marka adiga ma ina dulmigi badsatid oo mugdiyaashii badsatid marka qof dulmi sameeyeen waa qof meel mugdi galay marka dulmiga aad uu badan yahay insha Allah aan ka fogaano adulmu dhulumatun yawm alqiyamah ilaahay wuxuu leeyahay fala tadalamu ha isdulminina yani nasiixa waaye amar waaye fiiri hadalku waxa laga bilaabay naftadeeda aniga ka xaramoo leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala الله هذا كل دولي يا وخمسنا waxa uu qabsadaysa malaha waa dareen cid ugu doodaysa ma jiro maya asiga ku yiri aniga kuma dulminaay xiribtid aaw Allahu akbar yani muslim kaliya ma mu'min kaliya ma muslim gaal xiribtid aaw aniga adigu ku waxad gudbaa laakiin idinka isku xad gudbina walaalka dulminin wixiisa qaadan wixiisa cunin yani taas hadii la sameeyo adduunka ma jiri lahayn wax iska qabsado حتى waxaan aaminsanahay ilaa nation حتى ma jirin lahayn iyo wax xalay iyo maxal isjiray peacekeepers iyo waxa soo dhan yani ma loo baana hadii aan intaas bis aan ku dhaxmanayn wallahi waxaan aan isoo xasuusatay xadiis aan dhageystay sida maartay Umar bin Khattab oo kale nin oo maartay raylallahu anhu nin yahuud ayaa u iimaanaya maartay asxaabada dhahay nin Umar baa rabaa Umar wuxuu jiifaa geedo isku hurda waa maartay وانك أميرك مؤمنين تودنوا وقامي يودنوا صح والله تلمام إنها حقه جيفا أورطك ولا ما نكان ومارت وقامي أو ماشان اسكجيف ومعنا أو اسكبايلة بايلة أو واحد إلالي أنا أنلهين معناها أصيلها طبعا معنا وحا دم وحا سفتيسة هذا سجور بركة وحواي وحوصن دلمين هذه دت أو بدون منه أروحكوا إلى الله يملا دتك مبارك معنا رواية حرقي على خبصتي دينتي خبصتي لا كوحل إلى لنا ومارت بقرال تكنيكي ومارت أفريقيا اليونيون الدولة الدولية وحنا طبعا معنا دولة أو فرصة صح وحنا طبعا سن أقف كان الصومالي مدرس أركنا ومارت ملحوينا تلك وصوت حقله بولشين الصومالي أو صوت حقله شاه أو لعب سيدا فور إكزامبل إلهي خطردي ودمada Europe hada waxaan ka aragnaa nin German intuu ayaan filayaa nin oo macnaha kamid ah kuwa ma aragtay xildhibaanada khalad uu sameeyay sax bulshadii asagoo dhan la soo qaaday garbage ka lagu riday sax macnaha dadka agtooda macnaha qiimo kama laha خلاص la hadii dulmi samaysid waa gaal waxa saas sameynay sax anaga diin islaamka haysnaa muslimna nahayo magac muslimna ka bilaawina muslimna ku dhameynina صح marka anagii naga rabay ma artay inaan ma artay tusaalahaas oo dhan aan qaadano waa muhiim inaan ku dhaqanno oo for example European hogaamin kamid ah ma artay baaskilo iskaga socda waa president oo dhan iska wadana macna bulshadiisa ma kala jecel macna waxa soo dhan waxa waaye wixii muslimiinta laga rabay inay ku dhaqmaan wana si daro gaaladii inay aga hormaraan muslimiinta ay ka dambeeyaan marka saas darteed waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed meel alle meesha ay joogaan inay aad aga fogaadaan dulmiga oo la walaalsado adduunkan waa la dhimanaa salaada lagu dadaalo salaadana sideedaba waxa waaye salaad ay ka reebin dulmi salaad ma ahan marka inaan aad u xaqijino oo ilaahay u noqono aan duceysano ma artay ilaahay oo in ma artay dulmiga uu naga qabto marka waxaan leeyahay dhamaan dadka Soomaaliyeed meel alle meesha ay joogaan waxaan leeyahay sida ay naarta u nacban yihiin inaas ilaahay ka dhigo kuwa dulmiilaha oo dulmiga ay u nacban yihiin ما شاء الله أنا هذا ما سنتهي ولا الكينيو أنا برنامج كيني واسكا جوجو ومركل إيه برنامج كيني أما channel كيني دولميديت ميديا جروب وأقوبرتين إنه مرة والبويدين صوت تبيو أن وحيابها كصابسن دولميجا يوحي الحريرة سجوبتها كلا صعدة إن شاء الله سيدا نوري أقوبرني
mar waliba subscribe share and like si ay u gaaro dadka kale idinkana oo idin soo gaaro muuqaalada cusub iyo waxyaabihii aan soo geli doono insha Allah channelka wuxuu cod u yahay dadka aan codkooda meel gaarsiin karin wuxuu hiilo u yahay dadka dulman wuxuu hiilo u yahay dadka wax dulmay si aan u fahamsiino dulmiga iyo dhibaatada uu leeyahay barnaamijku waxa iga la qayb galay walaalkeena Cumar Abuukar Cumar ما سنتها waxaanu daadahinayay noona soo diyaariyay barnaamijkan Maxamed Nuur Osman oo asigana ah cameramanka iyo isku dawladaha barnaamijka insha Allah kan iyo mid ka xiga waxaan idinka tagaynaa sidaa iyo waxaan idin leeyahay dhamaan insha Allah barnaamijka isaga ah share gareeya share ku qabta idinka hadaadan share ku qabanin codkeenan meel ma gaarayo dulmudid adiga ayaa ah the voice of voiceless inaad share ku qabatid habadan ay marto salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah